wax alla wixii xijaabka horay uga tegey caawa laga bilaabo tawbakeen ilaah waa ku cafinaa subxaanahu watacaala quruxdaadii aad muujisay waxaad ku ahayd qof dalaal iyo baadi ku jira caawa haddii aad tooba keento ilaah waa ku dhaafaa subxaanahu watacaala meel kastoo xumaan aad ku samaysay wanaagu ilaah kugu bedelaa laakiin laga bilaabo berito yaan la arkin jirkaaga sida ilaahay uu kugu sheegayna habkaasoo kale u labiso waayo meel laguu soo joogaa ma taqaanid malakumowdka hadda inaad meesha ka kici doonto inaan albaabkaas gaari doonno in beri ilaah un waaga noo berisin doono waxaasoo dhan lama yaqaano marka gabadha muslimadday tooba keen oo ilaahay usoo noqo subxaanahu watacaala mar kale yaan la arkin xumaan macnaha cawraadkaaga iyo waxyaabaha ilaahay uu kuu diiday rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh waxaan ka naxsanahay oo aan ka murugaysanahay gabdho gadaal imaan doona aakhiru zamaanka oo diracyo khafiifa qaadan doona oo bannaanka ku soo bixi doona ayagoo luquntooda la arkaayo timahooda la arkaayo gacmahooda la arkaayo gabdha noocaasaa imaan doonuu rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh way iilan yihiin oo xaqay ka leexdeen dadkiina xaqay ka leexinayaan gabdhaha noocaasa ha la wacdiyo xaqa ha loo sheego hadday diidaanna hala lacnado maxaa yeelay malcuunin waaye waa kuwa la lacnaday jannada ilaahay inay galaan iska dhaaf buu rasuulku yidhi wallaahan ku dhaaf inaysan carabteeda helaynin 500 oo sano meel loo socdo ayaa jannada carabteeda laga helaa xataa haddii la geeyo naagtaan la heli mayso mana arkaysa jannada carabteeda rasuulku wuxuu yidhi silsiladooyin 70 dhudhun ah oo dhudhunka malaga ah oo naarta laga soo bixiyey ayaan arki doonaa ayagoo afka laga geliyey gadaalna looga soo bixiyey malaa'igta ay jiidayaan cadaabkana loo sii wado waa ii qaylinayaan yaa muxamed ayay dhihi doonaan intaan gadaal u fiiriyaan leeyahay ha ila hadlina diinta waa idin soo gaadsiiyey ha ila hadlina waa idin sheegay xaqa ha ila hadlina wax kastoo xaq ah hore ayaan idinkugu soo tilmaamay waxaan arki doonaa ayaga oo darkayga agtiisa jooga oo la jiidaayo oo hasha baadida ah marka halaha kale ay soo dhex gasho sida looga raacdaynayo oo kale loo raacdayn doono mar alla markay iyo wacdaan waxaan u malaynayaa dad fiican inay yihiin maxaa yeele ummatu maxamed bay ahaayeen ummaddeeday ka mid ahaayeen ilaahan kala hadlaa marka hore ayuu yidhi markaasaan leeyahay ilaahayo kuwa qoomkaygay ka mid yihiin kuwaa dadkayga ka mid yihiin ee maxaa dhacay ilaahay wuxuu igu leeyahay adiga gadaasha ayay diinta ku cayaareen kama aysan suulin inay jidhkooda banaynayaan kama aysan suulin in timahooda banaanka ay soo bixinayaan kama aysan suulin inay dadka xamanayaan saasay xaaladoodu ahaan jirtay kama aysan suulin inay irtido samaynayaan oo gadaal ay u noqonayaan in alla ilaa ay kasoo dhinteen marka saa laygu yidhaahdo ayaan leeyahay buu rasuulku yidhi fasixqan liasxaabi saciir asxaabu saciir ha la dheereeyo cadaabka meesha ugu weyn ha la geliyo ummatu maxamed ayaan nahan maanta ku andacoonaynaa ummatu maxamed lama cadaabaa la yidhi ummatu maxamed jannada albaabkee doonay ka gelaysaa ummatu maxamed xaqiiqa waxaa loola jeedaa qof ilaahay diintiisa raacay subxaanahu watacaala walaalay haddii aad tahay ummatu maxamed xaqiiqa ah jirkaaga dabool ilaahay ka baq subxaanahu watacaala diinta islaam